wanaag isku doori rabbiga walwalkiisu wanaag isku doori markaad wehelsiisay naftayda wareertay rabbiga walwalkiisu wanaag isku doori rabbiga walwalkiisu wanaag isku doori markaad wehelsiisay naftayda wareertay. waa tahay dhegeystayaal, waxaad kusoo dhawaataan sheekadii aad naga wardhowreyseen ee aad ku xiisaha badnayd ee laabmid ah iyo lur jecel. waana qayb hor leh, waana qaybta 69aad ee sheekada oo aad u xiiso badan, islamarkaana aan dadweynaha u soo bandhigayno. islamarkaana waxayna ka bilaaban doontaa meel loo baahan yahay. dabcan sheekadanna waxaa qalinka u qaatay Al-Abwaan Ismasitowsi oo sheekadana fikir dheer iyo maskax badan geliya. islamarkaana waxaa inoo dhiman qaybo kala duwan oo sheekada, balse kuna soo dhawaada intaanan hadalka idinku sii badan qaybta 69aad ee sheekada. hadalkeedana deeqay diintii nabadeedo haatan hawadeedu qalbiga naga habaysay hirsamoy maadhiga ilahaa saabow hirsama haddaanahay hodan waxaan ku hayo horumar iyo irhaamisami iyo sidaan ku hergeli lahaa hadalkaygii howd inaan mariyo hawo soomaaliyadeedu reedhaleeyo dhegeysto hirsamo ku horto hoobalayda leehayo ayuu hadalkeedu yahay ilahaa saabow hirsama haddaanahay haatan soyma helin haahey hirsamo kulahaa saawaye tolow halkaan kaa heeliya isna aan kaa hela iga hela haatan xaatifkaaga dhexdii halka bulshada casrigan heedhe youtubkiigaho. dhegeystayaal, qaybtani 69aad waxay ka bilaaban doontaa, islamarkaana aan ugu magac darnay ku jahawareerkii baari cadde iyo kala qaybsinkii akhyaarta. halkaa ayay inooga bilaaban doontaa dhegeystayaal. jawaabta mid ka mida raggii jaadhka ahaa uu ka yidhi madasha waxaa garaystay raggii kulanka fadhiyey oo ugu horreeyey baaryare. ha yeeshee jaraadixle wuxuu halkiisii ka sii watay inuu faagfaago waxyaabo hore oo uu ka tabanayay dayrdhale. dabcan sheekadu xilligaa waxay isku rogtay kala dheeraansho hor leh iyo is-xasuusin u muuqatay mid saamaynteeda geysan karta, siday sidaa u ahayd dooduna ku dhowdahay heer faraha laysla gaadho. waayo halkaa waxaa ka socday dood dhibteeda askumi karta. marka horena ka bilaabantay dayrdhale iyo jaraadixle, misna iminka waxaabay gaadhay in laba koox loo kala safto. halkii laga filayay akhyaarta inay wax dhexdhexaadiyaan ayaaba iyagii laba qayb u kala baxay. waxaana cakir markaana murugo horle ku beeray hooyo haweeyo farataagani dhanba dhinaca ka imaanaya, islamarkaana la isdhihi karo guuldarro ayuu noqon karaa heshiiskii markii hore loo yimi. ha yeeshee wiilkii baari cadde ahaa ayaa ku jahwareeray dhibtan kale ee odayaashan akhyaarlamoodka kicinayaan. waxaanuu baari cadde oo cadhaysan odayaashii dhagaha kaga aadimay kuna yidhi, warniyahu anigu waan kaala yaaba barnaamijyo kala duwan baad mar weliba dhegaysataa. kuwa waxaad dhegaysataa aad u cajiib badan oo maskaxdaadaba sii kordhinaya. waxaad dhegaysataa sheekooyin. niyahow sheekooyinkan iyo barnaamijyadan halkeed ka heshaa? saaxib, adiga waad warla'daasaan u malaynayo. waayo waxaan ka dhegaysataa barnaamijyada iyo waxyaabahan kala duwan aad arkayso. waxaan ka dhegaysataa idaacadda hirsamo. warniyahow hirsamadu FM laga dhegaysta miyaa ii sheeg bal? maya, FM la dhegaysta maahan. hirsamada waxaad ka heli kartaa moobilkaaga qaaska. kadib waxaad tegaysaa bartaada youtube, waxaad qoraysaa hirsamo tube media. waxaad heli doontaa barnaamijyada iyo wararka aan hadda heesta. warniyahow ma sidaaba? horhaa waa sida isla haddaba booqo barta internetka iyo radio hirsamo ee ah hirsamo tube media. warniyahow waad ugu og tahay inaan booqdo ee hirsamo guul baan leeyahay. barnaamijyadan baabaan ka helay inta badan aad dhegaysanaysa. hirsamo waa guushaada, waa guusheenna runtii.
magacaygu waa Torbaca Boqol Baalweel waxaan ku faraxsanahay idaacadda radio Hirsamo hirgelinteeda iyo helisteeda waxaan leeyahay idaacadda Hirsamo way horumartay waxay gaadhay horumar aan gaarin warbaahin FM ku shaqaysiyo warbaahin SOL laga dhageystay intaba marka idaacaddan way horumartay barteeda YouTube-kana in badan oo ku taxanahay waxaan ka dhageystaa barnaamijyada ay soo saaraan wariyaasha ka shaqeeya idaacadda waxaan leeyahay marka guul iyo gobonimo bahda radio Hirsamo aan leeyahay weligeena hankeena ka gungaara rabbiga walwalkiisu wanaag isku doori rabbiga walwalkiisu wanaag isku doori markaad wehelsiisay naftayda kuwa tahay dhegeystayaal waxaa halkan ku soo afmeeraynaa qaybtii 69aad ee sheekadii la magac baxday la mid ah iyo lur jecel intaynu dib kulmi doono qaybaha kale ee sheekada waxaan idinkaga tagnaa sidii aan idin dhihi jirnay oo iminka idinka idinoo dhahayo waxaan idin leenahay nabadgelyo iyo nolol kulante oo xiiso badan هادي وهاد هار والبان موجود هجا هذا اللي كان حما هاني هبل باهوك سمي هبلايا هذا الاتري للهبل باهوك ميسو ومبي هذا الكمان كدك تاني هورار سن ميديا هل كان كهلانيهو هافكي صوب برهان الصاحب ميديا لغو يرتو هنكاغا مديني هذا السن لغو يقان هذا مواد المقلين هرسام الراديو وي بورنيهو هرسام موجودي هاتنا انك مقلا hirsamo mawjadeedu waa hiba tabisaha laabuur leh had iyo goor ka dheeho halka bulshada casrigan hadalkoodu dhex yaalo hirsamo tub kala soco haddaba soo degso hal tabinta barnaamijyadeeda hagaag haadiyow iminkaba ha yeeshee haadiyow hirsamo hawraarteedu maxaa laga hantaa oo aan ka helaa hirsamaha haltaminteedu hadal ku dhibaya maaha hog sheegtana maaha hadal siyaasadeed haddima abuuraya hanxumi beeraya hoos u dhac muujinaya kuma habto bulshadeeda hirsamo waxay u helan tahay hanuuninta shacabkeeda ku hagiddahanka toosan ka hayaamidda hadafka xun iyo ka helinta hagardaamada hirka nabadda guusha hirsamo waa astaanteed wanaag isku doori